kulanto waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan u diyaar garow dhacdooyinkeena maanta Ramadaan Kariim qodobada ugu waaweyn ee dhacdooyinkana aad ku daawo doontaan waxa qayb ka ah dad isku qoysa ayaa ku dhintay Muqdisho kadib markii madfac xabawa uu ku dhacay gurigooda ay tire madaafiica lagu garaacay xerada xalane oo asaliga ugu weyn ciidanka Amisom wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay aan eegi doonaa dawladda Turkiga muwaadiniinteeda ayay kala baxday Soomaaliya xilli wadanku ay ku sii kordhayeen xanuunka COVID-19 Jubbaland waxay soo saartay amar lagu xirayo ama lagu joojinayo tukashada salaada taraawiixda si looga hortago xanuunka COVID-19 amaradaas ayaan eegi doonaa Soomaaliland waxa ay shaaciyeen kiisas kale hor leh oo xanuunka COVID-19 laga diiwaan geliyay deegaanada maamulkaasi qodobadaas kuba kale ayaa qayb ka ah dhacdooyinka maanta u diyaar garooba hagaaga intaas waxa ay ku ugu waaweynaa faafaynta ayaan gudi gali doonaa dad isku qoys ah ayaa ku dhintay magaalada Muqdisho kadib markii madfac uu ku dhacay guri ay deganaayeen sidoo kalena waa bariga hore saaka ayaa tire madaafiica lagu garaacay xerada xalane oo asaliga ugu weyn ciidanka Amisom ee Soomaaliya tiro hoobiyaal ah ayaa saaki waxay ku soo dhaceen xaafado ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay in ay geysteen qasaaro dhimasho dhaawac goobjoogayaal ayaa risaalo waxay u sheegeen in hoobiyaasha ay ku dhaceen xero la yiraahdo waa xerada geel lagu xanaaneeyo oo ku taala xaafada Tarabuusha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale guri ay deganaan dad shacab ah oo ku dhow xarunta tababarka jarnaal dhigabadan ee Ex Jazeera wararku waxay sheegayeen in hoobiyaasha ay ku dhaceen agagaarka kontaroolka ciidanka dawladda ee xerada xalane ee degmada Wadajir ay ku geeriyoodeen 4 ruux isku qoys ah halka islaan da ah oo ayna magaceeda lagu sheegay ama lagu magacaabo Nuura Maxamed cusub oo ayna halkaas ay ku dhimatay goobjoogayaasha waxay sidoo kale ay noo sheegeen in xerada ay ku dhinteen islaan waayeel ah sidoo kalena ay ku baaba'een dhowr neef oo geel ah oo halkaas hoobiyaha uu ku dul dhacay xaafada Tarabuush ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir maanta xaaladeedu waxay ahayd mid aad u kacsan dadka ayana walaac badan ka muujinayay madaafiicda hawga ay ku dhacay xaafadahaasi badana madaafiicda xaafadahaas ku dhacaya kuwa loo wado xerada xalane sida ay ururka al-shabaab ay sheegeen dagaalyahanada al-shabaab qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in tiro madaafiic ah waa bariga hore saaka ay ku qaadeen ama ay ku weerareen xerada xalane oo ah saldhigga ugu weyn ciidanka Amisom ee Soomaaliya xarunta xalane waxa ku taala saldhigga ugu weyn ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom gaar ahaan xerada ugu weyn ee Muqdisho waxaana la sheegay in hoobiyaashaasi sida al-shabaab ay sheegeen gudaha xerada ay ku dhaceen laakiin kale lama jiro wax warar ka soo baxay ciidanka Amisom ee ku aadan madaafiicda al-shabaab ay sheegeen in xerada xalane ay ku weerareen laamaha ammaanka dawladda iyo booliiskuna wali ma aysan ka hadal dawladda Turkiga waxa ay sheegtay in muwaadiniinteedu ay kala baxayso Soomaaliya maadaama dalka Soomaaliya ay ku sii kordhayaan kiisaska xanuunka COVID-19 oo dalka laga helay oo markan kor u dhaafaysa 390 qof dawladda Turkiga ayaa xalay muwaadiniinteeda qayb ahaan kala baxday magaalada Muqdisho xilli ay sii kordhayaan kiisaska xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya qoraal ka soo baxay safaaradda Turkiga ee Muqdisho waxa lagu sheegay in talaabada la qaadayo ay qayb ka tahay taxadarka madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ee la doonayo in laga hortago faafitaanka cudurka sabab la xiriira taxadarka madaxweynuhu qaatay si looga hortago faafitaanka COVID-19 muwaadiniinta ku sugan Soomaaliya waxa ay si ku meel gaar ah looga qaaday magaalada Muqdisho waxaana lagu celiyay wadanka Turkiga si waafaqsan dhammaan amarada ka soo baxay madaxweynaha ayaa lagu yiri warqad ka soo baxday safaaradda ma aysan shaacin tirada muwaadiniinteeda hase yeeshee ila wareedyo lagu kalsoonaan karayo risaalo waxay u sheegeen in ka badan 100 muwaadin oo Turki ah in xalay ka baxeen Muqdisho dhanka kale diyaaradda qaaday muwaadiniinta Turkida Turkish Airlines ayaa garoonka diyaaradda magaalada Muqdisho xalay waxay ka soo dejisay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xanibnaa dalkaasi Turkiga ilaa 58 qof ayaa la sheegay in ay la socdeen diyaaradda xalay ka soo degtay garoonka Muqdisho waxa jira dalal badan oo caalamka ay ku go'doonsan yihiin muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo doonayay in gudaha dalka lagu soo celiyo warka la xiriira coronavirus ayaan eegi doonaa daawadayaal ee Soomaaliland waxa hadda maamulka ay shaaciyeen kiisaskii ugu horeeyay waa kiisas kale hor leh oo xanuunka COVID-19 wasaaradda caafimaadka maamulka Soomaaliland ayaa maanta axada waxay soo bandhigtay natiijada COVID-19 ruux oo loo diray baaritaan caafimaad kuwaas oo dhammaanba laga helay xanuunka COVID-19 qoraal ka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Maxamed Cabdi
Hargey ayaa waxaa lagu sheegay inay soo baxday natiijada 11 qof oo baaritaankooda dhawaan loo diray sheybaar dhamaana laga helay xanuunkan. Qoraalka waxaa lagu sheegay in dhammaan 11 qof ay xanuunka COVID-19 uu ku dhacay lana karantiilay. Sidoo kale agaasimaha waxa uu qoraalkiisa ku sheegay in 6 kamid ah dadkan ay ahaayeen kuwa xilli hore la karantiilay oo xanuunkan la daalaa dhacay 5 qofna mar dambe ay yimaadeen deetana baaritaan lagu sameeyay sheegay in laga helay xanuunka COVID-19 ayaad moodaa markan inay ku sii kordhayo gudaha dalka. ugu dambeyn Jubbaland dhankooda waxa ay shaaciyeen ama ay soo bandhigeen amaro hor leh oo ku aadan oo lagu xakameynayo xanuunka COVID-19 maamulka ayaana amaro dulliga imaamyada masaajida ugu waaweyn ee magaalada Kismaayo. Guddiga ka hortagga iyo u diyaargarowga xanuunka COVID-19 oo qaabilsan Jubbaland ayaa maanta kulan ay yeesheen magaalada Kismaayo waxay soo saareen go'aano la xiriira cudurka COVID-19. xubnahan ayaa waxay soo saareen awaamiir cusub oo lagu xakameynayo cudurka. waxa ugu muhiimsanaa in la mamnuuco salaada taraawiixda masaajida lagu dukanayo. 2 in waqtiga salaadaha faralka ah ee waajibka ahna la soo gaabiyo waa waajibka aan ahayn la soo gaabiyo la dheereen. 2 in la furo waa in aan la furin musqulaha iyo qeybaha kale ee weesqaadka masaajida qof walba gurigiisa ku soo weesqaato. 4 in dadka ku nool magaalada Kismaayo ay yareeyaan isku imaatinka dadka si looga hortago faafitaanka cudurka. Deegaanada Jubbaland waxa laga diiwaan galiyay kiisas badan oo ku aadan xanuunka COVID-19. magaalooyinka ugu waaweyn xanuunkaas laga diiwaan galiyay waxa kamid ah Kismaayo, Dooble iyo qayb kamid ah gobolkaasi Gado. hagaaga daawadayaal warbixintan ay ugu dambeysay muuqaalkiina maanta ee dhacdooyinka wanaagga inta Ramadaan Kariim.